بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها iyo qadarinta mudano kulanti wanaagsan halkani waa STW Somali Television World alaba idinkaga yimaada magaalooyinka mataanaha Minneapolis wadanka Mareykanka daawadayaal sida TV-ga STW aad uga barateen in uu yahay mid dhexdhexaad ah waxa madasha studio-heena STW noogu balansan maanta oo marti noogu ah Ambassador Cabdikariin Faarax Laqayo oo booqasho socdaal ku maraya waqooyiga Amerika waxa safarkiisa uu ka soo bilaabay Cabdikariin Faarax Laqayo wadanka Canada sidoo kale wadanka Mareykanka ayuu booqasho ku maraya waxaan dhowr su'aalood ka weydiinaynaa waxyaabo badan oo ku saabsan dawladda federaalka meel gaarka ee Soomaaliya iyo waxqabadkeedii iyo safaaradda ugu horeyntii inta aanan gudagalin bal aan ka faaloodo qofka uu yahay Cabdikariin Faarax Laqayo Cabdikariin waxa uu ku dhashay gobolka Hiiraan waxa uu ku soo barbaaray ama ku soo koray magaalada Marka waxbarashadii dugsigii sare waxa uu ku dhameystay magaalada Muqdisho waxa uu kamid ahaa dadkii markaasi ka qayb qaatay dhanka isboortiga xulka qaranka ee kubadda miiska waxa uu kamid ahaa markaasi isagoo soo hooyay waxyaabo badan oo markaasi dawladdii Soomaaliya ay jirtay Cabdikariin waxa uu u soo dhoofay wadanka Ingiriisiga magaalada London ayuu ku noolaa waxa sidoo kale waxbarasho heersarada uu ku qaatay jaamacadda ku taala wadanka Ingiriiska Great Britain waxa uu ka mid noqday raggii bilaabay ganacsiga dalka Ingiriisiga waa aad iyo aad ugama sheekeyn karno oo waqtiga awadiis Cabdikariin sida aan aragnay waa nin dhalinyaro ah oo ka tirsan dawladda federaalka meel gaarka ee Soomaaliya isla markaana ah ambassador u ah dawladda federaalka meel gaarka ee u jooga dalka Ethiopia iyo qaramada midoobay ama qaramada Afrika waxa marka aan ku hormareynaa ugu horeyntiiba Cabdikariin ku soo dhawo barnaamijka STW ayaad u mahadsantihiin Cabdikariin ugu horeyntiiba safarka hore ayaa timid safarkan ugu horeyntii intaan su'aalaha gelin bal safarkaaga aad ku soo gaartay waqooyiga Amerika wax yar nooga taataabo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka mahad celinayaa runtii in aan maanta halkan aad igu marti qaadeen idinka oo runtii ummadda Soomaaliyeed dhabarka isaga jibiyay sidii aad u gaarsiin lahaydeen wixii war iyo mataqaanaa yani tusaalooyin ah taasoo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto adduunyada hareeraheeda ay u baahi qabto inkastoo aysan jirin television ama mataqaanaa warbaahin adduunka meel kasta laga dhageysan karo oo muuqaal ah oo aan